kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaanba daawadayaal halkani waa Garaa TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada xiisaha leh aad wararkeenan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo mar kale iclaamiyay waqtiga uu si rasmi ah u furi doono shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka waxaase doorkan diiradda lagu saari doonaa wararkeena Garaa TV ayaad ku daawan doontaan khilaaf hakad geliyay shaqadii golaha wakiilada Soomaaliland oo soo kala dhex galay shirgudoonka golaha iyo xukuumadda madaxweyne Biixi oo abaabulaysa mooshin degdeg ah oo ay ku doonayso in xilka ay kaga qaado gudoomiyaha golahaasi Ethiopia oo ciidamadeeda Soomaaliya ku sugan u daadgureynaysa xuduudda gobolka Tigreega iyo xaaladihii u dambeeyay ee dalka Ethiopia oo waqtigan meel xun gaadhay sidoo kale wararkeena intay socdaan waxaad ku daawan doontaan maamulka gobolka Hiiraan oo hay'adaha iyo shirkadaha caalamiga ah uga digay inay la macaamilaan al-shabaab go'aamo adagna ka soo saaray doorasho ka qabsoonta beledweyne 10 sano ka horna maanta oo kale booqashadii madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu Muqdisho ku yimi maxay Soomaaliya ka faa'iiday warbixin ayaynu ku dul istaagi doonaa kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada warka imikii haatanna kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan isku diyaariya isku soo noqod wanaagsan daawadayaal fadlan haddii ay ku joogto waqtigaagii salaada iska jooji daawashada muuqaalkan dibna ugu soo laabo marka aad soo gudato waajibaadka alle aynu ku bilownay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu mar kale shaaciyay waqtiga ay munaasib tahay in la qabanayo shirka golaha wadatashiga qaran oo markaasi dib u dhac ku yimi maadaama markii hore qorshuhu ahaa in Khamiistii shalay uu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qoraal xalay ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu iclaamiyay in shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya uu si rasmi ah uga furmayo teendhada Afisiyoni maalinta Sabtida ee ku taariikhaysan 22 bishan Agost oo ku beegan maalinta Bariya kulankan oo uu shir gudoomin doono ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa oo lagaga wada hadli doonaa diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka diyaarinta habraacyada doorashooyinka sidoo kalena shirkani intuu socdo waxaa lagu qaadadhigi doonaa sidii dhaqaale loogu raadin lahaa doorashooyinka iyo weliba sidii horey loogu soo socon lahaa maadaama oo badiba xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ay maamul goboleedyadu soo xulaan sidoo kalena qorshaha ayaa markii hore waxa uu ahaa in maalintii shalay ahayd uu magaalada Muqdisho ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran oo markaasi ka kooban ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana dib u dhac sababay safarka ra'iisul wasaare Roble ugu maqnaa dalka Masar iyo weliba madaxda maamul goboleedyada oo iyaguna soo wada gaadhin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ilaa hadda inta imika la xaqiijiyay madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Cabdicasiis Laftagareen ayaa soo gaadhay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay uga qayb galaan kulanka ra'iisul wasaaruhu iclaamiyay ee lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka sidoo kalena madaxda iyo wafdigoodaba waxaa si weyn garoonka diyaaradaha soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir xubno ka kala socday golaha wasiirada xukuumadda federaalka iyo weliba labada gole iyo weliba mas'uuliyiin kale oo markaasi bogaadiyay in durbaba ay yimaadaan magaalada Muqdisho labadan madaxweyne ee Galmudug iyo weliba Koonfur Galbeed Qoorqoor iyo Laftagareen ayaa qorshuhu waxa uu yahay inay ka qayb galaan shirkan sidoo kalena waxaa la filayaa in maanta ilaa biri subax hore iyaguna magaalada Muqdisho soo gaadhaan madaxweynayaasha kale ee saddexda maamul goboleed ee Soomaaliya shirkan ayaa si weyn bulshada Soomaaliya ay si weyn u qaadadhigaysaa iyadoona la filayo inuu ka soo baxdo natiijo wax ku ool ah oo markaasi suurtagal ka dhigta in doorashooyinku ay waqtigooda ku qabsoomaan maadaama oo ay soo baxayaan walaacyo sheegaya in doorashada madaxtooyada iyo golaha shacabkuba aanay ku qabsoomi karin waqtigoodii loo asteeyay sababo dhaqaale iyo weliba qodobo kale oo jira awgood ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isagu waxa mar kastaba dadaalka ugu badan ku bixinaya sidii doorashooyinku ay dalka uga qabsoomi lahaayeen
isagoona markaasi wakhtigana madaxda dowlad goboleedyada kala hadli doona sidii ay suurtagal u noqon lahayd inay faraha kala baxaan soo xulista xildhibaanada golaha shacabka oo markaasi dastuur ahaan ay soo xulayaan madaxda dhaqameedyada iyo weliba isimada. Si weyn ayaa loogu dhegtaagayaa natiijada ka soo baxaysa kulankaasi ra-iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ku dhex mari doona maalinta berriya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Garaad TV ayaad weli naga daawanaysaan ee aynu ku sii soconno wararkeena. Iminkii haatan aynu jaleecno dhanka iyo Somaliland. Khilaafkii ugu adkaa oo hakad geliyey shaqadii golaha wakiilada ee Somaliland ayaa waxa uu soo kala dhex galay gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi Mudane Siciid Mira Giire, iyadoona ay xusid mudan tahay khilaafkaasi uu ka curtay qodobo ay ka mid yihiin bedelidda xogayaha guud ee golahaasi Mudane Cabdirasaaq Siciid Ayaale, ansixinta xeer hoosaadka uu goluhu ku shaqaynayo oo markaasi xildhibaano 20 loo saaray isla markaana wax ka bedel ku soo sameeyey, iyo weliba in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi uu gudoomiyaha ku eedeeyey inuu shaqadiiba isagu maroorsaday, taasina ay sababtay in khilaafkani uu ka dhex istaarmo golaha isla markaana ay xaaladdu gaadho mid car iyo wura. Khilaafkan adag ee markaasi ka kala dhex galay shirgudoonka golaha wakiilada ee Somaliland ayaa iyaguna waxa ay xildhibaanada u sababtay inay 2 saf u kala fadhiistaan, isla markaana xukuumadduna ay ku howlan tahay dhankeeda dadaalla ay ku doonayso in xildhibaanada ka soo baxay xisbigeeda iyo weliba xildhibaano kale oo ay ka soo afduubato mucaaradka inay durribaba bilaabaan mooshin ay ka qaadaan gudoomiyaha golahaasi isla markaana suurtageliyay in xilka lagaga qaado. Taasina waxa ay sababaysaa in markaasi xildhibaanada mucaaradka u soo baxay oo leh aqlabiyadda golaha iyaguna dhankooda isku abaabulaan isla markaana iyaguna suurtageliyaan in markaasi ay cirka ku laalaan rajada xukuumadda ee ay xilka ka qaado gudoomiyaha golahaasi oo ay u aragto in cadaadis badan ay kala kulmayso maadaama oo durbaba xildhibaano ka tirsan golahaasi mucaaradka ka soo baxay ay bilaabeen dadaalla ay kula xisaabtamayaan wasiirada xukuumadda. Khilaafkan adag ee soo kala dhex galay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland iyo ku-xigeenkiisa koowaad ayaa sidoo kalena waxaa la sheegay in markaasi ay sababi karto in shaqadii golahu ay istaagto isla markaana durbaba la soo farageliyo si degdeg ah xal looga gaadho. Gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan ayaa la soo wariyey inuu durbo bilaabay dadgelin uu ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo shirgudoonka khilaafku soo kala dhex galay ee la sheegay in khilaafkoodu uu sababay shaqadii golahaasi ay hakad gasho. Waxaana xusid mudan in gudoomiyaha golaha wakiiladu isaguna uu sheegay in markaasi awoodda golaha oo isaga mas'uuliyaddeeda ugu jirta gacanta, sidoo kalena uu tixgelinayo dalabka iyo doonista ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad ee golahaasi. Shirgudoonka golaha wakiilada ee Somaliland ee khilaafkan adag soo kala dhex galay ayaa dhammaantoodba waxay ka soo baxeen xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ee Waddan iyo Ucid, iyadoo ay xusid mudan tahay in xildhibaan Giire oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu uu isagu ka mid ahaa xildhibaanadii la saftay xisbiga xukuumiga ee Kulmiye waqtigii ay socotay doorashadii shirgudoonka ee golaha wakiilada. Taasina waxa ay sababtay in markaasi uu noqdo xildhibaan dhanka xukuumadda awood badan ka haysta. Lama garanayo xaalku sida uu noqon doono iyo halka ay ku dambayn doonto khilaafkan adag ee soo kala dhex galay shirgudoonka golaha wakiilada ee Somaliland isla markaana sababay shaqadii golahaasi ay hakad gasho. Sidoo kalena bulshada ayaa si weyn waxay ugu dhegtaagaysaa inay hirgalaan dadaalada ay xukuumadda Somaliland wado ay ku doonayso in meesha ay kaga saarto Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga Waddani, sidoo kalena ah gudoomiyaha golahaasi laguna doortay cod aqlabiyada oo dhan 42 xildhibaan. Weli bartanka ayaynu kaga jirnaa wararkeenii Garaad TV iminkii haatan aynu ku sii soconno. Dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa durba waxay bilowday dadaalla ay ku daadgureynayso isla markaana ay gobolka Tigreega ugu geynayso ciidamadeeda ku sugan dalka Soomaaliya, gaar ahaana dhinaca dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaasi oon qayb ka ahayn ciidamada AMISOM. Waxaa la soo wariyey in durbaba deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed daadgureynta iyo dib u celinta laga sameynayo ciidamada Itoobiya ay ka bilaabeen, gaar ahaana ciidamada ka baxsan AMISOM ee ku sugan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ciidamadan Itoobiya ee ka baxsan xayndaabka AMISOM ee ku sugan Soomaaliya
ayaa lagu sheegaa inta u dhaxaysa 5,000 ilaa 7,000 oo qof oo kuwaasoo sheegtay inay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya. Waxaana la sheegay in markaasi dowladda federaalka ee Itoobiya sababta ay ciidamadan uga saarayso Soomaaliya ay salka ku hayso sidii ay u geyn lahayd gobolka Tigreega isla markaana qayb ay uga noqon lahaayeen dagaalka adag ee militariga Itoobiya ay ku doonayaan inay ka qaadaan xogaga hubeysan ee TPLF, taasoo waqtigan xaaladeedu ay meel adag marayso isla markaana dhankoodana xogagaasi hubeysan ay ku soo durkeen deegaano badan oo ka tirsan ismaamulada dalka Itoobiya. Inkasta oo Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya jeclaan lahaa inuu difaacdo danaha uu ka leeyahay Soomaaliya oo kuna hayo ciidankaasi gudaha dalka, haddana cadaadis xooggan ayaa uu kala kulmaya dhinaca ciidamada Tigreega oo gacanta ku dhigay qaybo badan oo ka mid ah dalka Itoobiya. Waxaana soo food saartay walaac badan oo uu ka qabo in TPLF ay mar kale talada dalka dib ula wareegto isla markaana meesha laga saaro. Taasina waxay noqotay sababta keliya ee markaasi ciidankiisa ugala baxayo dalka Soomaaliya. Ilaa haddana lama yaqaano tirada rasmiga ee Abiy Ahmed kala baxayo gudaha dalka. Bixitaanka ciidankan ay kala baxayaan dowladda federaalka Itoobiya Soomaaliya ayaa waxay ka dhex abuurtay hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed walwal iyo cabsi la xidhiidha in ururka Al-Shabaab ay mar kale dib ugu soo rogaal celiyaan deegaanada. Si gaar ah dowladda Itoobiya waxay ciidamadan uga saaraysaa gobolada Bay iyo Bakool, iyadoona markaasi la geynayo gobolka Tigreega si ay qayb uga noqdaan dagaalada ay Itoobiya iclaamisay inay la gelayso TPLF. Xaalka dalka Itoobiya ayaa waqtigan maraya meel adag, iyadoona markaasi ay xaaladdu laga cabsi qabo inay gaadho meel adag isla markaana dowladda Itoobiya ay iyaduna qaado dadaalada ay ku doonayso in dib ugula wareegto guud ahaanba gobolkaasi isla markaana meesha uga saarto TPLF. Dhinaca kalena xogayaha guud ee golaha qaramada midoobay ayaa isaguna dhankiisa war-saxaafadeed oo xalay soo saaray waxa uu ku baaqay in xabad joojin degdega laga dhaqangeliyo gobolka Tigreega, halkaasoo ciidamada Itoobiya iyo fallaagada gooni-goosadka Tigreega ay ku dagaalamayeen tan iyo bishii Noofembar ee sanadkii hore 2020. Antonio Guterres ayaa xaaladda ka jirta gobolkaasi ka Tigreega ku tilmaamay cadaab, wuxuuna sheegay in hay'adaha samafalku ay u baahan yihiin in shuruud aan loo ogolaado in gobolkaasi ay ka howlgalaan si ay u badbaadiyaan nafaha malaayiin qof oo gobolkaasi ku tabaalaysan. Waxa uu cambaareeyay tacadiyada dhanka galmada ee loo geysto dumarka gobolkaasi, waxaana uu dowladda Itoobiya ugu baaqay inay miiska wadahadalka dib ugu soo laabato isla markaana ay ka waantoodo gacanta birta ee militari ay ku doonayso inay kula wareegto gobolkaasi. Malaayiin qof ayaa colaadda dalkaasi ku barakacay, halka 100,000 kun oo kalena ay ku waajahayaan macaluul adag. Hadalkan ka soo yeedhay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo oo kadib markii hay'adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ay militariga dalka Itoobiya iyo xulafadooduba ku eedeysay kufsi aad u baahsan oo loo geysanayo dumarka markaasi ku sugan gobolkaasi. Lama garanayo xaalka dalka Itoobiya sida uu noqon doono iyo weliba tallaabada markaasi ay qaadi doonto dowladda Itoobiya, iyadoona ciidamadeedii ku sugnaa Soomaaliya qaybo ka mid ah kala baxday gobolada Bay iyo Bakool. Gabagabadii wararkeennii Garaa TV ayaynu soo gaadhnay, aynu eegno dhanka iyo go'aamo adag oo ay soo saareen maamulka gobolka Hiiraan. Guddida amniga ee gobolka Hiiraan ayaa waxay soo saareen amarro culus oo la xidhiidha amniga magaalada Beledweyne oo ay shaaciyeen inay ka dhacayso doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Guddida ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Beledweyne waxay isla qaateen in cid kaste oo la ogaado inay la macaamisho Al-Shabaab loo aqoonsan doono inay qayb ka yihiin kooxdaasi isla markaana laga qaadi doono tallaabo adag oo dhanka sharciga ah. Afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdilmuumin Cilmi ayaa warbaahinta waxa uu ka hor akhriyay go'aamada guddida ka soo baxay, isagoona sheegay in ciidamada amnigu ay amar ku qabaan inay tallaabo adag ka qaadaan ciddii lagu arko iyada oo ku howlan qalqalgelinta amniga waqti la isku diyaarinayo in magaalada Beledweyne laga qabto doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya. Go'aamadan dhowrka qodob ka kooban ee guddida amniga ee gobolka Hiiraan ay soo saareen ayaa waxaa ku jiray in ciddii lagu arko iyadoo gudaha magaalada Beledweyne ku dhex wadata qori iyo dhar caadi ah inaan laga qaado qoriga, sidoo kalena laga qaado tallaabo sharciya iyo xadhig. Sidoo kale waxaa qodobadaasi ku jira ciddii aadda deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab
la macaamisho kooxdaasi in loo aqoonsan doono loola dhaqmi doono sidii xubin ka tirsan kooxda al-shabaab, isla markaana si la mid a sida loola dagaalamo kooxdaasi iyadana dagaal adag loola geli doono. sidoo kale qodobada ay maamulka gobolka hiiraan soo saaray waxaa ka mid ah iyagoona uga digay dhammaanba shirkadaha iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa gudahaba inay wax la macaamila ay la sameeyaan kooxda al-shabaab, haddii taas lagu qabtana iyagana laga qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. sidoo kalena guddida gobolka hiiraan waxay tilmaameen in ciddii la arko iyadoo amniga qalqal gelinaysa in ciidamada amnigu ay amar ku qabaan inay tallaabo ku habboon ka qaadaan. ugu dambeynna go'aamada ay guddida gobolkaasi soo saareen waxay ku baaqeen in ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga maadaama la gelayo howlaha doorashooyinka. go'aamadan ayaa waxay ku soo aadayeen xilli dhowr jeer magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan soo galeen maleeshiyaad u wato jenaraal xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hirshabelle, iyadoona wakhtigan loo diyaargaroobayo qabashada doorashooyinka dalka. go'aamada ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan ayaa dadka siyaasadda gorfeeya waxay ku tilmaameen inay yihiin go'aamo lagu doonayo in lagu xakameeyo bulshada, islamarkaana lagaga hortago inay kooxda al-shabaab awood dheeraada ku yeelato magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraan oo dhanba. sidoo kalena ay muhiim tahay in tallaabo adag oo sharciga laga qaado cid kaste oo lagu qabto inay go'aamadaasi ay maamulka gobolka hiiraan soo saareen burinaya. waxaana xusid mudan in wakhtigan dalku guud ahaanba uu isku diyaarinayo doorashada golaha shacabka iyo weliba madaxtooyada soomaaliya, iyadoona ay xusid mudan tahay in wakhtigan wareeggii ugu dambeeyey uu marayo soo xulista xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya, taasoo badiba xubnaha aqalka sare ay soo xuleen maamul goboleedyada soomaaliya walow walaacyo badan oo laga qabay ay jiraan. khibradkeennii ugu dambeeyey ayaynu dul istaagi doonaaye maanta oo kale 10 sano ka hor madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa booqasho waxa uu ku yimi magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya, taasoo ibafur u noqotay in diblomaasiyiin iyo weliba madax kale oo dunida ay ku soo dhiiradaan in magaalada muqdisho ay u yimaadaan si markaasi ay ugala wada hadlaan sidii soomaaliya iskaashi dhinacyo kasta ay u dhexmari lahaa. booqashadan Erdogan uu ku yimi sanadkii 2011 ayaa waxay ahayd booqasho taariikhi ah, iyadoo wakhtigaasi dalka uu ka jiray qalalaase iyo weliba xaalado amni, waxaana wakhtigaasi madaxweynaha turkigu ku dhawaaqay in soomaaliya uu ku dhisayo safaarad ka caawisa qaybinta gargaarka. abaar ba'an oo dad iyo dunyaba saamaysay ayaa ku dhufatay soomaaliya wakhtigaasi. Erdoganna gurmad iyo gargaar ayaa uu fidiyey. xilligaasna soomaaliya waxaa la dhaalacaysay abaartii ugu xumayd ee soo marta qarniyo, iyadoo qaramada midoobnay ku dhawaaqday in macaluula ka jirto qaybo ka mid a dalka markii ugu horreysay tan 1991 ilaa 1992, balse faragelinta turkigu uu ku sameeyey waxay ahayd mid bini'aadamnimo oo keliya, taasoo wakhtigana saamaxday in guulo badan ay soomaaliya ku horseedo. warbixin ay daabacday xarunta cilmi baadhista ee TRT waxaa lagu sheegay in 10kii sane lasoo dhaafay howlgalka turkiga ee soomaaliya uu si wanaagsan ugu adeegay xidhiirka labada dhinac. soomaaliyana waxay ka faa'iidaysatay mashaariicda gargaarka ee turkiga si ay uga gacan geysato ka hortagga macaluusha iyo inay sare u sii qaado geedi socodka dibdhiska colaadaha kadib. haddaba 10kaasi sannadood ee ka soo wareegay wakhtigii madaxweynaha turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu ku yimi booqashada magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya, su-aasha isweydiinta mudani waxay tahay maxaa ay soomaaliya ka faa'iiday 10kaasi sannadood kadib turkiga. waxaa xusid mudan inay jiraan qodobo muhiim ah oo markaasi sare u qaaday xidhiirkii turkiga iyo soomaaliya, sidoo kalena muhiimad badan u leh soomaaliya, taasoo horumar ballaaran ka gaadhisay. waxaana hubaala in markii booqashada uu ku yimi madaxweyne Erdogan dalka soomaaliya inay furtay iyaguna ay dalka soomaaliya ku soo dhiiradaan inay yimaadaan madaxda caalamka iyo weliba mas-uuliyiinta diblomaasiyiinta dalalka kale ee dunida. qodobada markaasi ay soomaaliya ka faa'iiday 10kaasi sannadood kadib waxaa ka mid a tobabarka ciidamada. turkiga ayaa tobabar waxa uu fidiyaa ciidamada soomaaliya oo gudaha iyo dibaddaba uu ku soo tababaro, waxayna soo saaraan ciidamo tayo leh oo ay ka mid yihiin ciidamada gorgor iyo harimacad. turkigu sidoo kale ciidamada soomaaliya waxa uu tababar ku siiyay xerada Turkisom tan iyo sanadkii 2017 kadib markii heshiis militari oo ay kala saxeexdeen labada waddan. turkiguna sidoo kale waxa uu rajaynayaa inuu tababaro ilaa 15,000 askari
si ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ula wareegaan ammaanka guud ee waddanka isla markaana meesha looga saaro AMISOM. Qodobka labaad ee Soomaaliya ay ka faa'iiday waa cusbitaallo waaweyn. Marka laga soo tago tababarka ciidamada, Turkiga ayaa gudaha Soomaaliya ka hirgeliyay xarumo caafimaad oo tayo leh oo uu ka mid yahay cusbitaalka Erdogan oo hore loo odhan jiray Digfer. Qodobka saddexaad waxaa ka mid ah dib u dhiska waddooyinka. Turkigu door weyn ayaa uu ka ciyaaray dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa ka mid ah waddooyinka qaar oo tayaadir lagu sameeyey. Waxaa sidoo kale ugu muhiimsan waddada weyn ee isku xidha Afgooye iyo weliba caasimadda Muqdisho oo Turkigu qayb weyn ka qaatay dib u dhiskeeda. Qodobka afaraad waxaa ka mid ah in Turkigu uu wax weyn ka qabtay dhanka gargaarka bini'aadamnimada iyo xaaladaha Soomaaliya ka taagan. Waana tallaabadii iyo riddii ugu horreysay ee uu Turkigu ku soo galo Soomaaliya, waxayna aad u caawiyeen dadkii ay saamaysay abaartii darnayd ee ku dhufatay guud ahaanba dalka. Sidoo kale qodobka shanaad ee Soomaaliya ay ka faa'iiday 10 sano ee ka soo wareegtay booqashadii Erdogan oo ku yimi Muqdisho waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay deeqa waxbarasho ka hesho dalkaasi. Marka laga hadlayo deeqaha waxbarasho ee uu Turkigu siiyo ardayda Soomaalida aad ay u fara badan yihiin oo kumanaan arday ayaa ka faa'iideysta waxbarashada Turkiga loogu qaado. Turkigu sidoo kalena Soomaaliya waxa uu ka hirgeliyay jaamacado, iskuulo, tababaro xirfadeed iyo weliba xarumo luqadaha lagu barto. Waxaana taasi ay saamaxaysaa markaasi in Soomaaliya ay qodobada iyo qodobo kale waaweynba ay ka faa'iiday iyadoona ay xusid mudan tahay in sidoo kalena waqtigan Turkigu uu doonayo in Soomaaliya uu ka furto xarun laga hago dayax gacmeed uu u dirayo hawada sare. Turkiga ayaa Soomaaliya waxa uu ka horseeday horumar ballaaran iyadoona taa beddelkeeda Soomaaliya ay ka faa'iideysatay waana saaxiibka keliya ee waqtigan uu Soomaaliya ay leedahay Turkiga. Guud ahaanba warbixintaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa wararkeennii tan iyo inta mid lamida ku kulmayno. aan idinku dhaafno sidaas iyo nabadgeliyo.